كان يسود وهذا قال هن سود وهذا أسلوبات قرتين ولا إن كدقي عيدا كأسلوب تكمتي وحلو بهاي الدشبلين في عن وحلو بهاي عسكري ما في عن وحلو بهاي ودنيات في عن وحلو بهاي آمنات في عن وحلو بهاي الصومال النمو شلي أنا إذن قرأت معلمين تيني إداران كيني أنا أسوكين جاف وحبر الشغل اللي برانا إيه وحكست الله سمايانا مرء بالله بحسنايا كو أدين كم معه وادقتين دتك إلى سوق هذا بقولنا كو نقول سوق هذا كو أسكاري 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 داعب بوها دقان هذا كوها دريان قود بوها دوية نفتوها أسكاري داعب بوها دقان هذا كوها دريان قود بوها دوية نفتوها كاسميت الصوماليات جنرال مهر عبد الرحمن آدم تلي حيدينك سرياشا هجامدا سراكيشا نحي كوة هوسي سراكي الحيدينك عارف عيدة الدبليدة عيدة كاسميتا وعليكم السلام يا شكرا لك صوت قريب وعليهن حوق الدرك الصومالي كصحبة وحنيكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هل كان ساكي برنامج كان مسؤول مني
haddii aan qaldanay wuxuu ahaa soo dhaweynta 200 ee ku soo biirtay ciidanka asluubta ee dhiigga cusub ah rajaynaynana in ay dardar geliyaan howlaha ciidanka asluubta iyo dhiirigelin aan dhiirigelinayno ama aan ku tusaalaynayno meesha ay yimideen in ay tahay meel mudan in ay ku soo biiraan farxad gelintaas ayagana aan ku farax gelinayno oo aan tusayno in yacni ay yimideen gurigoodii oo laga sugaayey iyo walaalahood iyo waalidkood inay u yimideen tilmaanta noocaas inaan tusno baa barnaamijku saakay ku saabsanaay sida amarka taliyaha ciidanku oo ugu siiyey xalay arrin ka dambayda inuu sheegay meesha ku taagantaa talabiyaan u malaynaya intaa kadib taliye halkan saaka waxaa ku diyaara ciidan ka badan 450 baa diyaar ku ah waa taliska kaliya kuwana haddaan sugayna hubkoodu waa u dhan yahay diyaarna waxay u yihiin hawsha loo idmaday iyo waajibka la siiyo inay si hagar la-aan ah oo hufan u gutaan khudbadda iyo ujeeddada macnaheeda inaan ka farageliyo taliyaha ma rabo duruucda hadalka macnihiisa taliyaha oran doona waxaan u soo istaagay kaliya inaad taliyaha ciidanka asluubta maxad cabdiraxmaan sarreeyaguuti maxad cabdiraxmaan aadan ku soo dhaweeyo taliye si aad khudbadaadii iyo dardaarankaadii dhaxalgalka ahaa ee ciidanka asluubtii soomaaliyeed oo kaaga baratay halkan aad tusaalaha iyo tilmaamaha uga bixiso ku soo dhawow makarafoonka taliye ka salaamaya ciidanka asluubta taliye xigeenada kan koobaad iyo kan labaad saraakiisha sare sarreeyaasha gaashaalla sareyaasha gaashaalayaasha saraakiisha inferior iyo superior nooc kasta oo yihiin ciidanka saraakiil xigeenka iyo dableyda iyo alifleyda intaba rag iyo naagaba ciidanka asluubta meel kasta ay joogaan waa salaamayna salaan ka bacdi tugaana waxaan salaamayaa kuwa hadda na hor fadhiyo naga soo horjeedo oo aan fariinta u dhiibayn waxaan wadnaa fariin soo dhaweyn iyo dardaaran intaba leh kuwaas ayaa mataqaanaa salaamaynaa salaan ka bacdi wixii war ahaa oo la sheegi lahaa kooxdaa inta ka sheegtay taliya xigeenka oo bahal kala ah yaa ku daray aniga wax yaraaba ii harayba 2 kelmadood inta halkan laga sheegaan la qabaa maxaa ka mid ah ciidanka ciidamada dushooda lagu seexanayo inuu yahay oo lagu soconayo inuu yahay oo ka mid yahay yaa la qaba kooxda cunkarna hilmaan hadalku ma jira waa salaamaynaa sida quruxda badan oo wadaniyada leh ayada iyo baandadaba ay mar walba uga soo qaybgalayaan wixii aan u sheegno nidhaah maanta ha la qabto ay u qabanayaanna
وأقوم هنقينا وأنا السلام يا هدان إلهي كودي لنا مورا الكودنا كرم الصغار دونا حنونياش قرن كي كم ديهين ترتم بالوجرة إني كوبو لجتين بعنت الغشاقي فاستدي هذا النودن بيسي لحي اللباتن في جون يكون بالنونيو horta taliixigeenka wuxuu ii sheegay tartamada la galay inay number 1 noqdeen ciidanka asluubta kooxihiisa ama bandayda ama kooxda onkod aniguba isheegaan wax ku arkaayay anigu waxaan joogay dalka turkiga magaalada istanbul ayaan feestooyinka ka fiirsanay iyagoo oo dhigaayo astaamihii dalka uu lahaa oo dib loo soo celinayo oo ay ka mid yihiin taalooyinkii ciidanka asluubta uu dhisay oo ay calankii wadaan madaxweynihii iyo labada gabdhoodna ay garab socdaan ay daba socdaan aniga istanbuulan ka fiirsanay waa aragteen quruxdii iyo waddankii waxa la dhigay maanta taalooyinkii oo dhan baa la saaray feestadii hadda aan dhaafnay teedi kale waxay ka sii weynaan doontaa midda hadda aan soo marnay way ka sii weynaan doontaa taas waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo oon qarankana u sheegi doonaa in magaalada haro oo layidhaha onkod ha loo daayo kooxdeeda ha loo daayo asluubta ha loo daayo festoy in la yidhahaan rajeynayna haddii ilaahay yidhaah heerkaas inaan gaarno waa hawshii dalka loo qabanay waana ku guulaysanaynaa horena waa loogu guulaystay taas waa middaas adinkuna waxaan rabnaa dhib iyo dheefba inaad kooxaha waa la ballamaya in ay marada dhexda ku xirtaan annagana waa daba ordayna ayaguna ay hor ordaan ciidanka asluubtana ay hor ordaan bambay haddii ilaahay yidhaah waxaa la rabaa ciidamada la qoraayo inay ayagu istirsoonka baraan oo ay maalin walba ama waqtiyo aan u cayimi doonaa jira inay la hor socdaan baanbaydoodii iyo durbaankoodii iyo waxigooda inay la hor socdaan oo ciidankaas uu noqdo ciidan annaga aan kooxdan ay ku ekayna baraatooyinka inaan ka qayb qaadano taasaan rajeynayna haddii adi marka taas halkaasaa laga gudbo tan kale waxaana sugaysa shaqo ballaaranaa na sugaysa shaqo ballaaranaa na sugaysa meesha aan ku noolnahay in la waardiyeyaa la rabaa eedadeed in la waardiyeyaa la rabaa shabaabka in laga waardiyeyaa la rabaa dhulkii in la waardiyeyaa la rabaa hantidii asluubta ay lahayd in la ilaaliyaa la rabaa inaan kor u soo kacnaa la rabaa guriga aan hoos teganahay iyo deegaanka kan ummad horaa laga soo gaaray inay wadani ahaayeen oo horumarka waddanka yani inay jecel yihiin waxaa lagu garan karaa dhulkaan intuu la egyahay meeshii ay noo qabteen oo ay asluub u qabteen inaan ilaalino annagaa nagala rabo inaan ilaalino annagaa la rabo taasna aan lagu xisaabtamo taas waa tii dhulkii iyo hantidii wey hubka qaranka aan haysanana inaan kordhinno moogi inaan wax u dhinnana inaan mataqaanaa yani iska ilaalinana waa nagala rabaa waa waxaan isku difaacayn waa waxaan dalka ugu shaqaynayn waa waxaan ma garanaysaa yani cadowga kala hortegayn meeshaan waxay ka qaadeen gabdhuha cabdikariina heesaha iga fiican derbi adag ayaan nahay dhagax kor ka soo dhacay mi sheeko aad u qurux badan bay gabdhuhu halkaan ka qaadeen iyo hooballada dawal la harsadaana daacadaana askari daacadaana bay qaadeen marka waxaa la rabaa afka le inaanan ka dhihin oo ka dhabayda micni taasna waa na sugaysa aad baan kugu mahadinaynaa dhegaysigiinna iyo qaabkiinna ciidannimo
waxyaabaha yaryar oo naga dhimanna aan buuxinno dalka inaan u shaqayno oon horumarino horumarkiisa aan ka qayb qaadanno ayaa waajibkana saaran ah